niman kale la hadashaa rag kale la hadashaa waad khiyaantay khiyaanalooy waa tahay waxaan kugu khiyaamay niman kale la hadashaa. qisadani waa dhab waxaana inoo soo dirtay gabar magaceeda inoogu soo koobtay Fahiimo oo ku nool dalka Cumaan. haddaba daawadayaal qisada gabadhani waxay u badan tahay dhibaato dhanka jacaylkeeda ka haysata talooyin ayayna idinkaga baahan tahay. waxa aad inoo soo gaaraya dhalinyarada dhiigga u huraysa jacaylka oo intooda badan ka cabanaya masayrka ama hinaasaha iyo dabeecado badan oo sababi kara inuu kala dhantaalmo jacaylkooda oo ka haysta dhanka haasaawaha sida gabadhani oo kale. haddaba inkastoo aanan wax badan ka aqoon masayrka ama hinaasaha haddana waxaan isku dayi doonaa bal inaan marka hore wax uun idinkaga sheego. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. masayrka waxaa lagu sheegaa inuu yahay wax ku beeran qof kasta oo bini aadan ah laakiin waa ilmo aragto aan la garanayn halka uu qofka kaga yaalo. wuxuu leeyahay laba waji oo wanaag iyo xumaanba leh. waa kan koowaada qofka oo wanaag cilmiga iyo horumarka kaga maseera kagana dayda qof kale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka wacan laakiin waxaa jira hinaase shaki iyo kalsooni darro wata waana kan aynu doonayno inaynu caawa isdul taagno aad ayayna uga cabanayaan dhalinta maanta. masayrkaas uma haya micno dhab ah oo aan ku qeexo balse waa dareen u badan malaa awaal oo qofka u bidhaaminaya humaag beeneed ku riixaya shaki iyo inuu ka aamin baxo qof kale. dadka qaar ayaa ku tilmaama qofka masayrka ama hinaasaha badani inuu yahay mid aan ku kalsoonayn naftiisa cabsi badanina ku jirta taa oo sababi karta inuu markasta ka walwalo in laga faramarooqsado wax kasta oo uu gaar u leeyahay. cadaadiska iyo culayska naftiisa uga imaanayana waxay sababtaa marmarka qaar inuu bannaanka u soo saaro oo uu caro iyo canaanba kala duldhaco dadka ku xeeran xitaa qofka ugu dhow ee uu la nool yahay isagoo ama iyadoo weydiinaysa su'aalaha ka dhashay humaaga been abuurka ah oo ay maskaxdiisu soo farayso. waxaana ka mid noqon kara hadallada uu ku hadaaqayo qofkaasi waad iqiyaamaysaa been baad ii sheegaysaa iyo yaad la hadashay. haddaba aayaha nolosha TV wuxuu fursad u siinayaa dhalinyarada in ay isku dhaafsadaan aragtidooda kuna naqas baxaan halkan oo ay ku soo bandhigtaan waxa gubaya si ay daawo ugu helaan. aynu wada dhageysana Fahiimo iyo waxa kala haysta jacaylkeeda waxayna bahda aayaha nolosha TV ka codsatay inay la taliyaan. waan idin salaamay dhammaan aayaha nolosha TV iyo asxaabta ku xiran generaalka. waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo dhibano ku ah jacaylka. run ahaantii waxaan rabaa inaan la wadaago qiso yar oo igu dhacday amba i haysata aniga. magacaygu waa Fahiima waxaana ku noolahay dalka Cumaan. waxaan is jecelnahay wiil ku nool dalka Yurub. awalan waxaan iska baranay Facebook ayuu maalin igu soo darsaday waan aqbalay oo ila hadlay barasho kadib waan isbaranay wiilkii barasho kadib wuxuu iga codsaday inaan xiriir la sameeyo laakiinse anigu waan ka yara diiday oo waxaan ku yidhi anigu ma awoodi karayo xiriir ku dhufo ka dhaqaaqa oo qalbiga la iska jabiyo. anigana ma rabo diyaarna uma ihi inaad waqti xaadirkan qalbigayga lagu ciyaaro umana soo jeedo wax xiriir ah. wuxuu igu yidhi abaayo ma dhacayso inaan qalbigaaga ku ciyaaro waayo anigu maan caadaysan inaan gabdhaha qalbigooda ku ciyaaro marka bilis qaladayd iga fahansan tahay aniga. waayahay ayaan ku iri wiilkii kadib waan isla xiriirnay wiilkeena in badan waan wada soconay. jacaylkeenu wuxuu noqday mid ballaadhan oo baaxad weyn. aad ayaan wiilka ugu kalsoonaaday aadna wuxuu u hantay dhammaan qalbigayga wuxuuna tegay xubin kasta oo ka mid ah jirkayga iyo qalbigayga iyo naftayda idin waan u hibeeyay. kadib wiilkii waxaan sidaas ahaanaba aan kalsoonideed wada siiyey isaguna mar walba waan isla hadli jirnay woona isoo xariirin ana waan xariirin jiray. waxaan ahay gabar wax barata sidoo kale gabarna waa dareemi karaysaan oo mataqaanaaye dee kama sheekeynayo
way shaqaysaa, rag iyo dumarkuna isku mid maahan. Isagu wuxuu dhahayaa mar walba ila hadal waqtigiisii, laakiin anugu run ahaantii waqti kamaan hakaran oo mar walba waqtigayga inta ugu badan isagaan siiyaa. Wiilkii wax saas ahaadaba wuxuu la soo baxay. Aniga berigii hore xanaaqiisa ima tusi jirin, wuxuu iska keli jiray qof fiican oo wanaagsan, mar walba ila hadli jiray, mar walba ila xiriiri jiray, waxna uu dhihi jiray duqaalka saana sameysay. Okay, waan ka leexin jiray. Kadib wiilkii markuu ogaaday inaan si dhab u jeclahay ayuu ugu yiri qaylo fara badan, waxyaabo fara badan aan fahmi karin unbuu igu yiraahdaa. Igu qayliyaa, igu qaylo wax kasoo hartay, waan maseeray iyo sidaan sameysay, waan gaashigii rag kale la socotaa sameysay. Aniga waxaan ku yiri walaal raggan inta ma socdo nin lama soo sheekaysto, qof aan adiga ahayn ma aqaan, qof aan adiga ahayn uma baahni. Mustaqbalkayga noloshayda nafteeda waa adiga oo ku yiri, adigu kaliyaati waan kugu xiraanahay, adiga kaliyaatan dunida ka eegta, adiga kaliyaatan adduunyada ka eegta. Kadib waan qancay ayuu igu yiraahdaa message hadduu arko ii soo dhacay wuu igu xanaaqayaa, hadduu igu arko call ii soo galay wuu igu xanaaqayaa, hadduu igu arko wax dee mataqaanaa dee waxaad yeelan kartaa asxaabteydii familkaygii cid aan xiriira malahan. Marka waxay saas ahaataba call hadduu igu arko wuu igu xanaaqayaa, isagu callku rabo ku hadlaa, wuxuu rabo sameeyaa. Danka kalsoonahay waxaan u qaaday kalsooni aad u ballaaran. Walahi kalsoonida ku qabo mid la qiyaasi karay maahan. Anigu waan ku kalsoonahay, si xad dhaaf aan ugu kalsoonahay, laakiin isagu kalsoonidii aan anigu ku qabo isagu mid aniga igu qabo oo ma ahan. Wiilkii wuxuu sidaas ahaadaba xanaaq, maseer, qaylo saan waxaan fahmaynay ayuu la imaaday. Kadib ayuu igu amray inaan mataqaanaa WhatsApp-kaas ka delete gareeyo. Waan deleted Facebook-kayga password-kiisa sii yiri, waan siiyey, wax walba waan u sameeyey. Markaas ayuu igu yiri waxaad leedahay Facebook kaleeto oon kan ahayn, ayaad markaan seexdo amba meel aado ayaad kala xiriirtaa nimanka, markaas nimanka la hadashaa. Walow dee qadku iiga tago mar qadkaagu amaaha qadka iga taga. Markaas wuxuu leeyahay qadku markuu kaa tago halkaad jirtaa. Waxaan ku yiri walaal aniga qadku hadduu iga go'o qadka iga go'ay, qadkaas ka maqnayn, qadkii waa iga tagay, anigu Facebook kale ma isticmaalin. Wuxuu igu yiri ma Facebook kale aad isticmaashaa, Facebook kale leedahay saan weeye. Aniga wallaahi qalbiga xanuunay, waxaan is iri inaan ku sidan muxuu kuugu galayaa. Aad baan u jeclaaday, aad baan ugu helay. Run ahaantii jecelkan hadda uu qabo mid aan qiyaasi karo maahan. Wallaahi bilaa marba waxaas dheesaan qof baa jeclaane single-kaaga iska aho. Haddana wallaahi waan qomameeyaa mararka qaar nafteydaan xisaabiyaa oon iraahdaa maxaad u jeclaatay, maxaad ka doontay, nafteydaan xanaan ugu dhaqaaqaa. Laakiin anigu waxaas wax uma narkayo, waayo waxaa la yiri hore loo yiri sabraa baa sadkiisa loona samraa waayahay waqtiga. Markaas wiilkii inaasoo aan meel jirin iyo qaylo iyo waxaanan ugu jeedin iyo waxaan wallaahi bilaahi talaahi benediin ma sheegaye. Anigu waan ku kalsoonahay, mashquulka haddaan ku arko waan weydiiya, wuu iiga jawaaba, asxaabteydna la hadlaya, waxba kama soo qaado. Waa mid kaleetee connection haddii waxba kama soo qaado khadka baqayahay. Haddaan message-kiisa arko waxba kama soo qaado, waayo waan ku kalsoonahay. Kalsooni dhab ah oo buuxda ballaaran baan u hayaa. Laakiinse isagu wuxuu igu leeyahay waan kaa maseeray, niman kale la hadashaa, rag kale la hadashaa, waad khiyaantay, khiyaanalooy waa tahay, waxaan kugu khiyaamay, niman kale la hadashaa. War xagee nimanka kala hadlaa, xageen nimanka kala hadlaa. Wallaahi bilaa qof markaad jeclaato waad iska dhiban tahay soo moogeed. gabar wuxuu tagayaa saaxiiban wuxuu ku yiri
anigu gabadhaas way igu tumatay, waxay rabtay iga samaysataa, say rabtay ila dhaqantaa, say rabtay u hadashaa, say rabtay samaysaa, ima ixtiraamto, imaasaan iga dacwootay oo iga dacwooday. Gabadhii baa soo waxday, waxaan ku raabaayo maxaan ninkan wuxuu sheegaya maan fahmin, ima soo jeedo oo ku yiri nimanka la hadashaa, nimanka laban ku xakin kula hadlaa, kitaabaan soo qaato numaran ku yiri walaahi bilaahi talaa inaan cod aan isaga yahayn codkiisa aan cod kale aanan dee cid kale uusan ii xigin baan ku yiri. dee mar walba waxaan isku dayaa inaan qanciyo, mar walba waxaan isku dayaa inaan uun qaladku iga fahansan yahay aan ka tirtiro, laakiinse qofku dee aaminaad darahduba waxa kalsoonideeda waxa ka lumiyaan ka yaabay. weligeed anigu mataqaanaa waxa kalsoonideeda dhumiya anigu ma u samaynin. kadib wiilka waxaan saas u ahaadaba anigu koleyso ilaa hadda waan jeclahay, ilaa hadda waan ooyaa, waan u ilmeeyaa. asxaabtiisa ayuu wada baray, wuxuu i baray familkiisa qaar ka mid ah ayuu i baray. markii aan isku dhacno waxaan u tagaa wiilashay asxaabada yihiin ayaan u tagaa, wiilashaasaan u dacwoodaa, markaas ay igu tagaan asaga la hadlaan. xasas gabadha ugu galaysaa, gabar ku jecel waay walaahi bilaahi talaahi anigu way u ilmeynay. qadiin quraan casheen baan hadlaa oon iska ooyayo, inta koreyga dambeys ma aqaano, xasan sameyn ma aqaano, aniga dhan noloshayda boo qaylaystaraysaa gashay. waan la hadlaa wiilashii way la hadlaan, waxay ku dhahaan gabdha sida maxaad ugu galaysaa, way soo raadshaa raali kaliya bas iga raali noqo uu dhahaa. sidii isku dhaafnaa waan la hadalnaa, waxba kama soo qaado, waan la hadalnaa. xidhiidhkana bartii waxna iskama dhimo, waxna kama dibxin, sii kordhi maahane. run ahaantii wiilkaas anigu sina kagama maarmo. maalin waxaa dhacday wuu igu yiri waan isku dhacnay, waan raadiyey, waan ooyey, waan ilmeeyey, waan rafaaday. dee runtii anigu saan ahay ma garan karayo. markaan isku dhacno waan isku dhex wareeraa, naftaydaan ilaabay, nafti aan aniga lahaa baan ilaabay. waan raadshaa xitaa telefoonka marmar buu khadka iska xelaa, aniga dhan waali aan ku sugnaadaa, haddana waan iska sugaa. waxaan wacaa asxaabtiisa laakiin way waxaan waayaan, waan iska sugaa. kadib adigu waan isfahmi laanahay, ilaa hadda wiilka maanaan kala tegin, ilaa hadda maanaan kala goyn. xiriirkeenu siduu u socdaa, laakiin waan isku dhacnaa, isku dhaceynaa badan. mar walba waan isku dhacnaa, mar waliba matqan waan isku qaylinaa. anigu koleyta wax qalad ah kama galo, wax qalad ana ku sameynaa ma garanayo, laakiinse mar walba igu xanaaqa igu qayliyaa. hadallo uusan ka fiirsanba mar walba igu yiraahdaa, waxyaabo aan ka filanba mar walba igu yiraahda uu ka qoomama iga raaligasha. saas ay tahay anigu maalin baan isku dhacnay. markaan isku dhacnay facebookeyga ayaa waxaan soo saarsay sawir. wuxuu igu yiri sawirkaan sababta usoo saarsay maxaa lahaa, waxaan ku yiri sawirku aniga iskale maxaa dhacay, maxaa isbedelay baan ku dhahdaana saarsado. nin kale u baahan tahay, nin kale rabtaa miya bababa walaahi bilaahi anigu saan anigu kuma wada joogi karno, niman kale u baahan tahay, niman kale rabtaa goro walaalo dhageyso, anigu nin kale ma baahan karan ma rabo fahamte. dadna ku jeclaa ku baahanaya ku rabaa doon ku jeclahay xaajiska lagu qali hadal ugu yiri koleyto anigu waxba hadda kama soo qaadayo, laakiin hadal xun buu igu yiri. isaga amsa shabanka yiri shaban siiri waan wacay ugu jaraa bilisiya isku ooy asliisana saas miya yawan kulan kaamsay yawaanki sidaas weerkiisana waan gashaday. waxaan arkay naag uu la hadlayo la jaatmayo. screenshot baan kasoo qaaday, naagtii wuu delete gareynay. screenshot baan kasoo qaaday waan u yara diray. markaasaan ku yiri waxay naagtan la hadlayso whatsapp intaan ka wacay message ku diray waan ka wacayna. markaasuu yiri no la bashaaliya waan naagtan yiri
saasaad hadlaysaa waan ka aamusay saasaad hadlaysaa shabaadka ila nafteedan go-aan ka qaato waxaan ku ninkasan maanta kula hadlay baranaysa kulada ka aamus shabaanka iri lamaan jooqin lamaan hadlin sidii baan uga tegay sidii baan uga aamusay adigu titiba bariis lamaanan hadlin isagoo isma soo wicin ana ma wicin waana san aamusay markuu arkay inaan su-aalta waayey isaguna wadkeysan waayey wuxuu kala jeedo unbaan anigu garan waayey igama maarmano waana waa jeclayaa igamana maarmo laakiin sidan waxay ka tahay waan garan waayey unbu soorta soo waxay kamaan qabo telefoonka waan ku jarjarayga qabo hal mar baliis waan ku bareeyaa telefoonkayga qabo kaama qabanayo kuri hadalkaaga uma baahni ma doonayo nabadgelyo anaa haddaba hadalkaaga rabeyga qabo warkuuma rabaan ku iri nabadgelyo hadalkaas adamiinka dhowtiigu tira ana waan kugu iri nabadgelyo kadib halay waan iska cawanka qabta waan iska cafiye waxaan ku iri bardaba aniga sidanaa ilaal wii bareey waan ku bareeyaa wiig dhanbu i bareeyo ilaahay mardama wax qalada kaama gelin wax damba laguma sameynayo ayabaan ku iri anigu nin umaan soo jeedin markaas naasigeen maba rabin kitaab jaamacana marin laakiin masayr baa ku jira baas iyo shaki aan ka baxayn hadduu wax yar ogaayo adugu sikima hadduu ogaayo boodaya masayr nin kala lahadlasa nin kalaad ka maqantahay nin kalaad sheekaysataa nin kalaasaan dunidaba ninba ku qaribay whatsappka dhaleed kare facebook cusub uu ii sameeyey facebooka igala hadal qofaad la hadlan reerkeeni waa hore igu dambaysa waxaan ku iri reerkeeni waa la hadlay iga daadee marka walahi bilaahi tala dhibaatada dunga iska jirta laakiin saan waxaan ku sameeyay maaqaan markasta waan isdagaalaa markasta waan isfahmi weynaa waxay ka tahay waan garan waaye markasta waan iskhilaafnaa dad badan baan dhex galay dad badan baan dhexdhexaadaya qofkii runtii qof jecel soo maran baa jecelka dareemi kara xanuunkuu leeyahay ilaahi taxal anigu kuma soo koobi karayo qisooda ay haysata iyo waxaan sameeyo kuma soo koobi karayo inta laakiin waan baryayaa waxaad isiisaan talaadanii ka fadhiyaa waayo markaan waan daalay wiilka waxaan isla soconaa muddo hal sano ah halkaas sano dhib iyo qeylo iyo masayr aan meel jirin unba maskaxdayga haystay walow aan nafteyda iloobay oo aan nolosheeda iloobay oon asxaabteyda iloobay xitaa waxaan iska dhigay qof xelxiran asxaabteyda goori ugu dambeysa maaqaano lama hadlo waqti lama qaato qadka waan soo galaa isagaan kala hadlaa waan ka baxaa qofna telefoonka ma qabto qof lama hadlo qof uma jawaabo qof hadduu igu arko anoo online ah wuxuu dhahay nin baad la hadlaysaa hadduu arko anoo mataqaana mashquula nin baad la hadlaysaa hadduu arkona message dhahay nin baad la soo hadlaysaa adugu sheekadaman wiilkani nin bay kaga dhegtay nin unbuu hayaa kalsooni iguma qabo miya waxay ka tahay waan garan waayo jacayl ma jira miya anigu fahmi waayo waxaan rabaa inay ila talisaan waxaanay walaasheen dhiban wajahada kalonsan tahay walaalo waadan baryayaa ila soo taliya jirna idinka hadeenka fadhiya halkaana qisadeeda kuma soo koobi karayo qofkii jecelahay unbaa dareemi karaya sheegato mar walba waxay ku dhahaa qalbigaaga ayaad iga jebisay niyadaada iga dhaawacday waad khiyaamaysa khiyaano la ibaata waxaan ku khiyaamay ma jirto anigaba iska hoolan oo aan iska ku yaaban marar waxaa jirta aan isaga mashquulo oo gabar baan ahay aan xaafada kan ka shaqeynayaan iska mashquulo oo howlo igu furtaan intaas iima sabri karaya intuu wax soo qorayo wadnahday waad iga tagtay saanaa tahay kanaa tahay khiyaano loo ibaataas anuu haddaan kelmad ku idhaahdana wuxuu yidhaahdaa ma ixtiraantid ibisaan ibismis walaa xitaa marar waxaa jirta anigu ma dhihi karayo saan igu sameeya laakiin waxyaabaan loo dulqaadan karanayo mararka badan igu dhahaa kuma soo koobi karay meeshaan ويسك حالته